الله الرحمن الرحيم. halkan waa meel kamid ah degmada Caluula ee gobolka Boolimaad. halkan waa caasimadda gobolka Boolimaad ee magaalada Caluula. hadda waxaan taaganahay xeebta ayaan taaganahay. waxaa la dhow magaalada Caluula oo qaabkiisu yahay boqol kale soo booliga. hadda waxaan dhigan hal door ayaa dhigan. doonta waa taas weeye. doonta ayaa dhigan waxaan magaalada Caluula booriga afkiisa iyo qiimadaha ay ka soo galaan waxaan ugu talagalay inaan xisno dadka gaariyadaha dibadda jooga balsida ay u tahay shaqada deegaanada raasacadeysteeda Soomaaliya deegaan ilaahay uu ku dhameystay bad dheer oo qurux badan dad badan ay ka shaqeeyaan qalabkan waa qalab kala duwan oo lagu shaqeeyo dooyaha dadkeysaan waxa la yiraahdaa laashaq ayaa la yiraahdaa gaar ahaan waxa la yiraahdaa sayloon ayaa la yiraahdaa way kala duwan yihiin agabka badan ee lagu shaqeeyo oo badda laga shaqeeyo halka waxa soo gaadiidka badda ee badda laga shaqeeyo ayaa soo halka waxa soo gala booriga biyihiisa ayaa soo gala adeegeeda ay jiraanin halka waxa ka bilaabmaya boorigii iyo doonidii iyo magaaladii Caluula ayaa ka bilaabmaya dooniyada waa kuwa soo saartay u tafan yihiin iminka waxa weeye wax xilli galab ah weeye wax xilli badda laga soo roxay laakiin waxa iyo diyaar garowga gaadiidka meesha ayaa dareemaysanin waa kuwaas doonyahaas waa doonyaha lagu mar ahaan lagu kalluumeeyo haddii kalluunka doonyaha loo gaado ama haddii tahay kalluunka kaleeto ee magaalooyinka ay isticmaalaan waa ujeedaanin hadda waxaad arkaysaan dooniyihii oo halkan dhigan ayaad arkaysaanin kuwaasa way xeebta dhan weeyaanin gurigaas aad arkaysaan waa guriga baarlamaanka ee maamul goboleedka Raascaanood haddii aanan dhulkaygo ruuxada haddii aanan dhulkaygo dhulkaygo gobonimada soo dhicin haddii aanan dhulkaygo ruuxada waku karin haddii aanan dhulkaygo ikuugu fuldhigin haddii aanan dhulkaygo gobonimada soo dhicin Soomaali kama dhalan malka gamandagan anihi samandamin malka gamandagan anihi samandamin itana dabmalidin malka gamandagan anihi samandamin malka gamandagan anihi samandamin itana dabmalidin haddii aanan dhulkaygo gaajo kuugu dhumna
haddii aanan dhibaatada كان حريفته هلك جوجو كويا haddii aan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran hore waxay sababtay markii kalluunku galo waxa weeye kalluunka ayaa awood badan marka waxaa jira dad xirfadaas yaqaano oo iyagu sababta sidooda hore ka dhigaya ama kabaya qaabka uu kabayo waa taasa ayuu leeyahay daaci wax ma nooga sheegi kartaa qaabka shaqadan aad u kabayso iyo shaqadan saa u samaynayso haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran marka hore markay daloosanto maxaa ku dhaca ma kalluunka googooya ma libaaxa googooya maxaa googooya هي مركي عدو واحد كده يتسدد ولا كده يتسدد ما تتقاطع بس maxaa waxa sameynaysa dad waxa jira aan aqoon u lahayn furmo qaadi karta baaga sameynaysa tamira kama guran muniga bamal uni kuma dhaqa okay adiga ayaa ma tantahay tamira kama guran muniga bamal uni tamira kama guran muniga bamal uni kuma dhaqa magaca insha Allah waxaan jecelahay inaan sawirada iyo fiidiyoyada inta aan ka sii karino aan kusoo sida mataqaana ay ugu dhacayso howlaha ka socda qaybta magaalada Camula aanan dhulkaygo السلام عليكم داعي بعد waxna wa sheegtaa kalluunka hadda ma halkan seeyahay ma kalluunka ma ku badan yahay mise waa ku yar yahay aye doyi madda ma waxay jiraan dhinaca banaanka haddii aanan dhulkaygo ruux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygo laakiin markii hadda halkan oo kale laga shaqeynayo calulo ay doonyo yimaadaan qiimadaha iyo gaadiidka badda ee lagu shaqeeyo inta ma ka badan yihiin Soomaali kama dhalan okay marka hadda waxa la leeyahay waa in yaro meesha joogta ma ahan mataqaana gaadiidka dhabta ah ee lagu shaqeynayo okay arrintaas waxay soo butay sida xoog kale ee deegaamadan ay uga xamaashaan ama ay uga shaqeystaan badda una soo saaraan xeeladaha kala duwan ee ku duwan badda ku duwan aad ayaad u maadsantahay saaxiib waana kaaga mahadcelinaynaa waraysiga kooban ee aad nasiisay iyo sida aad noogala qayb qaadato fiidiyowgan marka haddaan idinku celiyo halkaas waxa weeye waa qooriga caluule وكذا وحوي سياس قرص الفضنايو هلكن بيجي تجينا يسوق لي هلكن حفيا لو وصوره وميلها تلخيص كلو تجو وميلها عشيش يا عم لا وكذا حصيصه الآن عيبت هاي مجال حلوله وكذا هلكن وفقي هلكن تجين كذا اللي قلت لي هلكن وحوي وفقي وكذا waxaa ugu dheeradan waxa weeye waa dib distance waxa la yiraahdo suuro ayaa la yiraahdaa way la wareegaan meel kasta oo ka mid ah qooriga iyo meelaha badda ayay ku yahay aad iyo aad ayaad u aragtaan baan u malaynayaa sida ay u qurux badan tahay deegaankan iyo qurux badan iyo bilicdiisa iyo wanaaggiisa waad aragtaaniin sida gaadiidka shaqadu ay ku yihiin waad u jeedaan meel kasta oo ka mid ah xeebta bogcad kasta oo ka mid ah xeebta waxaa yaal gaadiidka shaqada ee lagu shaqaysanayay inkastoo nin aan waraysanay uu noo sheegay in gaadiidkan hadda balse ay maqan yihiin gaadiidka dhammaantiisa oo ay ku maqan yihiin gobolka Binna oo halkaas kalluun badan iyo shaqo badan ay ka jirto waad u jeedaan sida ay ka shaqeeyaan ay diyaarka haddii aanan dhulkaygo gaajku gudubna haddii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dheeran Soomaali kama dhalan hawl baaxad leh oo laga shaqeynayo dhinaca badda oo soo saar badan maamulkuna waa كما العيون كما دخل المقاعد
maamulka السلام عليكم.